halkan ayay inoogu dhammaatay qaybtii hore. Iminkana waxaynu isku dayeynaa part 2 in aanu soo saarno. YouTube-ka subscribe saar, like. Khamarjigii weynaa waa uu hadlay. Markii dambe waa uu soo kacay, wuxuuna yidhaahday anigu waan sii baxayaa, waxaan doonayaa inaad ilaalisid dalkan iyo meeshan. Markii dambe khamri ayuu ka jaray wuuna cabay. Kabacdii waxay ka wada hadlaanba kii kale wuxuu yidhaahday anaa ilaalinaya ninkan, sirta waan kasoo saaraya, hadduu soo saari waayana waa aan dilayaa. Markii dambe waa uu kacay miskiinkii, wuuna cararay, wuuna ka farabaxsaday dadkii kale. Markii dambe wuxuu soo cararay halkii ay ka soo galeen cadowgiisu, wuxuuna arkay nin hor taagan. Maamulihiina wuxuu u dhiibay baaskoolad gaangistarkii ka yaraa. Wuu ka qaatay baaskooladii wuuna cararay, wuxuuna ka daba cararay ninkii. Ninkan wejigiisa laga baqanayaa, seef ayuu la soo baxay, ninkii kalena bir ayuu qaatay. Kabacdi wuxuu seeftii midida ugu faanfaaniyaba wuu cadhooday, wuuna ku cararay ninkii. Waxaa soo cararay maamulihii oo baaskoolad wata, wuxuuna u yimi miskiinkii oo midi qoorta lagaga hayo, si xunna loo jirdilay. Kabacdi wuxuu yidhi anaa ninkan iga soo cararay, soo daawuuna dilay. Wuu u dhameeyey, maamulihina baaskoolad ayuu ku ficay ninkii, mise wuu qoslay. Ninkii kalena wuu qoslay, baaskooladiina hoos ayuu uga ceshtay. Way isla qosleen, wayna isla hadleen. Xeertiisii kale ayaa timaaday. Kabacdi labadii maamule ayaa isla hadlay. Wax la isla hadlo iyo wax la isla buuqaba, ugu dambeyn way is afahmeen. Baaskooladiina wuu u celiyey, wuu iska baxay maamulihii kale. Gaangistarkii ayaa meesha kusoo hadhay iyo ninkii wejiga foosha xumaa lahaa. Ninkii kalena waa uu iska tegay, wuxuuna raacay maamulihiisii. Maalintii dambe waxaa meesha yimaaday ninkii ka baxsanayay tuugta. Gabadhii waxay ku tiri guul wanaagsan ayaa noo soo hoysay, sacabkana waa loo tumay, waana loo mushxaraday. Ugu dambeyn waxaa u yimaaday managerkiisii oo joornaal akhrisanaya, wuxuuna ku yidhaahday shaqadiina si fiican u wata. Wuxuu arkay ninkii oo meesha taagan. Kabacdi wuxuu yidhi ka waran joornaalkan iyo adigoo meesha ku sawiran. Wuxuu yidhi haa waan u jeedaa maamule. Wuxuu yidhi waad fiican tahay, maadaamaad guul fiican noo soo hoysay, sharafteenana aad kor u qaaday, annaguna taada kor waan u qaadi doonaa. Maadaama aad ka baxsatay tuug dalka dhammayn jirtay, intaad dishay aad caawa, taasina sharaf bay noo tahay, adina sharaf bay kuu tahay, waa mahadsantihiin ayuu ku yidhi maamule. Dhib ma laha, waxaan waa laysla wada qabtaa buu ku yidhi, hana ka warwarin, garabkaaga ayaan taaganahay. Fikir iyo joornaal akhris ayuu galay ninkii. Markii dambe waa uu isaga soo baxay xafiiskii, wuxuuna yimaaday gaadhigiisii. Laakiin wuxuu maqlay shil meesha ku dhacay iyo gaadhi halkiisa dambe oo isfurtay. Markii dambe umuu dhaqaajin, kama walwalin, gaadhigiisa isku koray. Laakiin waa loo yeedhay, wuu soo cararay, wuxuuna eegay meeshii. Mise wuxuu arkay qof afduuban oo meesha ku jira. Kabacdi wuxuu la hadlay talisihii meesha joogtay ama waardiyihii, wuxuuna ku yidhi alaabtaa ii doon. Wuu eegay qofkii, si fiican ayuu uga bogtay. Kabacdi wuu baadhbaaday, wuxuu ka baadhayo ma garanayo. Qofkii wuu baadhbaaday, wuu eegay, waa uu dhegaystay, wuxuuna is yidhi bal inaad wax ka maqasho fiiri. Markii dambe maamule wuxuu yimaaday xafiiskiisii siduu bal wax uga baadho. Gabadhii qofkii maanta soo arkay gaadhigii halkiisa dambe uu caddayn uga baadho, wuxuu wacay xafiiskiisii. Wuxuu yidhi ID-ga ii soo baadha caafimaadkiisa siduu ahaa markii hore. Warqado ayuu ka baadhay, iskaan telefoonkiisa ayuu soo qabsaday, wuu baadhay, iskaan fara badan ayuu mariyey. Ninkii meel walba waxayuu ka soo qabsatay, cadeymo fara badan ayuu soo raadiyey, wuu la hadlay. waxaa iyaga xilliga wuxuu qabanayay iisoo sheega, muxuu gaadhiga loo geliyey, sababta loo soo afduubtayna laakiin maxay ahayd. waa baadhay, adigu ku wareeray. Ugu dambeyntii leeleenka ayuu dhigay, telefoonkiisii ayuu caddeyn naxdin leh uu ka arkay oo indhihii ku xanuuneen. Markii dambe asaga oo sugaya in loo keeno jawaabtii ayaa loo keenay telefoonkii ay caddeynta ku jirtay. waxaana lagu yidhaahday annagu caddeyn kamaana soo helin ee hoo telefoonka. wuu yaabay, wuxuuna yidhaahday haddaa telefoon wuu ka qaaday,
isaga ayaa eegay xoogaa ayuuna baarbaaday. Halkaas ayay nagaga eg tahay labadii baarti aynu kasoo saaraynay filinkii Black and White baartigiisii hore soo boostay. Waa inoo iyo baartiska kale ee soo socda.